ku salaamay saaxiib. Xalay waxaan aqriyay buugga Siirul Aclaa Nubala. Weli waxaa dhagahayga sii yeedhaya dhawaaqa erayada Cabdullaahi ibnu Mubaarak oo ku yidhi Imaamu Maalik. Waxa uu ku yidhi ma aanan arag nin gaadhay heerka uu gaadhay Imaamu Maalik ibnu Anas. Umana aanu gaadhin sooniyo salaad badnaanay waxa uu ku gaadhay inuu Ilaahay wax la siraystay. Saaxiib, markii uu Maalik qoray kitaabkiisa Muwadda ayaa lagu yidhi maxay dadku uga baahan yihiin iyadoo ay kutubta xadiistu aad u badan yihiin. Markaasuu yidhi wixii Ilaahay dartii loo qabtaa way waarayaan. Maalik noloshiisa oo dhammina Ilaahay dartii ayay ahayd. Kitaabkiisaasina sidaas ayaa uu ku waaray. Saaxiib, Ilaahay waxa uu jecel yahay sir wanaagsan oo aad ku qarsatay. Addoonkuna uu Ilaahay ku siraysto oo isaga unay kala dhaxayso. Indhaha aadamuhuna aanay qabanin. Dhigaha dadkuna aanay maqal oo aanay ku bogaadin. oo qofku u sameeyo isaga oo ay niyadiisu tahay keliya Ilaahay dartii, isagoo ku kalsoon inaanay Ilaahay agtiisa waxba ku dayacmaynin. Ha ahaato sadaqad joogta oo aanay kamaradu ku qabanin. Ragcadaad habeenbarhka tukado iyadoo ehelkaagu ku malaynaya inaad hurdo. Dee inaad ka guddo qofku qarqiyo oo meheradaas soo hormari kari lahaa adigoo aan isaga garanaynin, isaguna aan adiga ku garanaynin. Agoonaad kafaalo qaatay oo aan weligood ogaanaynin cidda kafaalo qaatay. Saaxiib, maanka ku hay hadalkaas Maalik. wixii Ilaahay dartii loo qabtaa way waarayaan. Qormaad u faafisay maxabo aad Ilaahay u hayso darteed iyo difaacista diinta ayuu Ilaahay kugu sakhrayaa kumanaan qof adiga kaasi xambaara unkana gaadhsiiya. Afarta baynu jeerladana ka tallaabinaya adigoo gurigaaga fadhiya. Ugaad qortay adigoo ka lahayn niyo aan ka hayn Ilaahay dartii iyo inuu Ilaahay sabab uga dhigo qof inuu toobad keeno oo u soo laabto iyo inuu samirsiisu noqdo qof murugaysan, una niyadiisu noqdo qof niyad jabsan, una hanuun u noqdo qof habowsan. adigu waad dhimanaysaa. Si kaas Ilaahay ayaa ku waarinaya. geedaad Ilaahay dartii u beertay oo Ilaahay kaaga dhigo mid kuu qotoma sida buurta, una baraka kuu geliyo. dadkana uu dhankiisa u soo haago si uu adiga ajarka ugu siiyo oo shalay ahaa nin yar oo soo biqashay. Si Ilaahay ayaa ku waariyey. eelaad Ilaahay dartii u qotay oo abaalmarintiisu ay noqon karto Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo gacmihiisa kugu waraabiya. ma jirto cid Ilaahay ku oofin badani. ha ahaato waxaasaad Ilaahay ku siraysatay. waxaad ku siraystay dhisme aad xifdinta qur-aanka u qoondaysay, maadaama aanad soo helin adigu fursadda aad qur-aanka ku xifdido oo Ilaahay kugu sakhro kuwa ku xifdiyo qur-aanka. malaa'igtuna ay ajarkooda oo dhanba bogolkaaga ku qorto. wixii Ilaahay dartii loo qabtaa way waarayaan. yaa filayay Riyaadu Saalixiinka lagu gadi doono maktabadaha Paris iyo London. si Ilaahay ayaa taaracday qalbiga Imaamu Nawowi, kana raalli noqday ikhlaaskii uu muujiyey, kadibna kitaabkiisii nooleeyey. waxa iska dhaca maaha in qalbiyadu ay la dhacaan. kitaabka Madaarij Saalikiin oo hore ayuu qalbiga Ibnul Qayyim isugu dhiibay Ilaahay. la yaab ma laha inuu dhintay Ibnu Jawzi oo waaray kitaabkiisii Saydul Xaadir. oo waxa Ilaahay dartii loo sameeyo ayuu Ilaahayna la jiraa. Imaamu Axmed waxa uu ku ducaysan jiray, Allah ayuu idil oo yaanay baran cid kaaga sahay. Ilaahay qalbigiisa ayaa u taalacday oo uu ka bogtay inaanu caanimada dan iyo hela kala hayn. ayuu dhimashadiisii kadib ka wada baray. saaxiib, mar walba maanka ku hay wixii Ilaahay dartii loo falaa way waarayaan. nabaadiina saaxiib.